aadiyaan asaasiga u ah ee fuqahadu ay aad uga hadli jireen qofka muslimka ee soomay markuu istiijaysanayo gaar ahaan dabada markuu maydhayo dabadu duluc bay leedahay dabada duluceega in la maydhaa waa muhiim oo nijaasada laga maydho calaamado lagu gartaa jira qofku inuu duluca dabada maydho iyo in kale dee fartaadani hadday siibsiibanayso weli wax nijaasa ku jirta meesha haddii laakiin fartaadu jidhka ay caadi u qabsanayso waxa weeye nijaasa kuma jirto dabada duluceeda fartaa loo isticmaalaayo dee duluca dabada laguma fogeeyo laakiin inuu haddii qofka fartiisu ay ku fogaato soogiisii ka waramaday fuqaadilahay ilay waa meel bannaan oo manfad ah meeshaa bannaan ee manfadka ah haddii fartaasi ay ku fogaato soogiisii ayaa khatar geliya ha is ilaaliyo qofka muslimkii meel kasta oo furan oo bannaan inay wax ka gaadhaan ha iska ilaaliyo waxyaaba nacfiya jira hadduu ninku makiinad ka shaqeeyo oo budada uu riqo budadaa iyo makiinadaa uu ka shaqaynaya duulduul yar ayaa afka iyo sankaba ka gelaya una awoodi karayo wax alla wax dhiba oo ay u leedahay kol haddii khiyaarkiisa ay ka baxsan tahay ma jiro sababku waxba ka noqon maayo hada wasallu wasallimu cala almabcuuthi raxmatan lilcaalamiin imtithaalan biqawlihi tacaala ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluna cala nabiy ya ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima allahuma ya raafica asamaai bila cadad ويا مثبت الأرض بلا وجد يا من خلقت السماوات والأرض في 6 أيام ثم استويت على العرش يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون اقض حاجاتنا وأعطنا سؤلنا وارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارزقنا الصبر والسلوان يا أرحم الراحمين اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات اقض حوائجنا وحوائج السائلين اللهم فرج كروب المكروبين واعط كل سائل مسألته اللهم لا تحرمنا من كرمك وعطفك اللهم عاملنا بما انت اهل له ولا تعاملنا بما نحن اهل له اللهم امين اللهم اشفنا يا ارحم الراحمين من عين العائلين وسحر الساحرين وكيد الكائدين ومكر الماكرين ربنا لا تزغ قلوبنا ولا دينا الا قضيته ولا مرضا الا شفيته ولا مرضا الا رفعت بفضلك وكرمك وجودك واحسانك اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همنا ويسر امرنا وارحم ضعفنا وقله حيلتنا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين اللهم انا نسالك ان تجعل خير عملنا اخره وخير ايامنا يوم نلقاك فيه انك على كل شيء قدير اللهم ان كان هذا الوباء والبلاء بذنب ارتكبناه او اثم اقترفناه او وزر جنيناه او ظلم ظلمناه او فرض تركناه او نفل ضيعناه او عصيان فعلناه او نهي اتيناه او بصر اطلبناه فانا تائبون اليك فتب علينا يا رب العالمين ولا تطل علينا مداك اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك لا اله الا انت من هذا الوباء يا رب العالمين واقم الصلاه الله أكبر